kulantii wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idin hayana waxaa kamid ah Somaliland iyo Puntland oo isweydaarsaday maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalkii Tukaraq madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku jooga dalka Britain in ka badan 10 ruux oo kamid ah dibadbaxayaasha Suudaan oo iyana ku dhintay howlgal ay ciidamadu ku kala eriyeen ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeena aan ku bilownay dalka Suudaan ku dhawaad 12 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada militariga Suudaan ay weerareen fariisin ay dibadbaxayaasha Suudaan ka samaysteen goob ka soo horjeeda xarunta taliska militariga uu ku leeyahay magaalada Khartoum wararkii ugu dambeeyay ee rabshadaha Suudaan waxa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur qalalaasaha maanta ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashir bishii Abriil ee sanadkan ciidamo militari ah oo aad u hubeysnaa ayaa saaka ku qamaamay teendooyinka ay deganayeen dibadbaxayaasha ee ku yaalay banaanka hore ee xarunta militariga halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dadka ayaa ku ordayay oo qaadayay kuwa ay rasaastu haleeshay bayaan ka soo baxay dalladda ururada abaabulay banaanbaxyada Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo isugu jiray militari boliis iyo maleeshi hubeysan ay raafeen oo ay xoog ku kala eriyeen dibadbaxayaal si nabad ah u muujinaya shucuurtooda ururkan ayaa xaqiijiyay in dadkii ku sugnaa banaanka xarunta militariga xoog looga saaray halkii ay joogeen ururka xirfadleyda Suudaan oo kamid ah ururada rayidka ah ee gadaal ka reexaya mudaaharaadka ka dhanka ah taliska militariga ayaa ku eedeeyay militariga inuu isku dayayo inuu kala jabiyo kacdoonka waxa ay ku tilmaameen waxa Suudaan maanta ka dhacay xasuuq ka dhan ah shacabka laakiin war ka soo baxay golaha sare ee militariga Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada ay bartilmaameedsadeen koox fowdo ah waxa kale oo ay militarigu sheegeen in aysan dhibaataynin dad si nabad ah u mudaaharaadayay midowga dhaqaatiirta Suudaan ayaa war goor dhaweyd uu ku soo daabacay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku sheegay in tirada dadka ay maanta dileen militariga ay gaarayso 13 qof waxa kale oo intaasi raaciyeen in isbitaalada la geeyay dad badan oo dhaawac qaba oo ay ku jiraan kuwa halis ah hogaamiyayaasha kacdoonka Suudaan ayaa iyana war ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in ay joojiyeen wadahadaladii ku saabsanaa dhisidda dawladda kumeel gaarka ah ee xilliga kala guurka ee ay kula jireen militariga Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha militari ee xukuma Suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka sameynaya dibadbaxyada Somaliland iyo Puntland ayaa maanta isdhaafsaday 17 kamid ah ciidamadooda kuwaas oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii bishii May ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool hay-adda ICRC ayaa maxaabiista maanta u kala dhoofisay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle hay-adda lanqeyrta casriga caalamiga ee ICRC ayaa maanta diyaarad kaga qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa 14 nin oo hore maxaabiis ugu ahaa Somaliland laguna qabtay dagaaladii u dhexmaray Somaliland iyo Puntland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool isla maanta ayaa xukuumadda Somaliland ay ku wareejisay hay-adda lanqeyrta casriga caalamiga xubnahan hore u ahaa maxaabiista iyadoo diyaarad lagaga qaaday lagu geeyay magaalada Garowe wareejinayna hay-adda lanqeyrta casriga caalamiga hadda wixii ka dambeeyo waxaan jecel lahay idinkoo markaa rabtaan diyaara idinkoo fasaxayna halkan timaadaan oo dabadeedna halka ku sheekaysano aad iyo aad baanu idin hambalyeynayna aad iyo aad baanu idin macsalaamaynaynaa saraakiishii gacanta idinku haysay warbixin wanaagsan bay idinka bixisay kolle dad badan iyo ciidan badan oo idinla joogay baa saaxiiba ku sii yeelateen aad iyo aad baa u mahadsantihiin Anise Xuseen oo ka tirsan hay'adda lanqeyrta casriga caalamiga ayaa sheegtay maanta xubno ka tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa dib lagu celiyay guryahooda guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti lanqeyrta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda hawsheena kaliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda
aan Hargeysa iyo Garowe ka kala geyno. waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan. dhinaca kale saddexdii maxbuus ee reer Somaliland ee maamul goboleedka Puntland ay gacanta ku hayeen ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa laga soo dejiyay maanta. ciid dagaaladii aan ku kala qabanay ciidamada oo iyagu u wareejinay 14 maxbuus oo dagaaladii kaga qabanay iyaguna ay soo wareejiyeen 3 maxbuus oo inaga soo qabteen dagaaladiina dhaxmaray. marka waa maalin farxada oo muujinaysa nabadgelyo waxaana jecelnahay inuu dagaalku halka ku dhamaado. Khadar Maxamed Cakulafi oo Hargeysa. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku jooga dalkan Britain ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay qasriga boqortooyada ee Buckingham Palace ee magaalada London. madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka degaysa ee Theresa May gelinka hore ee bari oo Talaado ah. boqorada Britain ayaa qasriga boqortooyada ku soo dhaweysay madaxweyne Trump iyo xaaskiisa iyadoo oo ay ku marti qaaday casuumaad qada sharaf ah. ka hor intii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan isagoo oo sheegay in uu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad weyn oo ay ku yeelan karaan isdhaafsi dhinaca ganacsiga ah. maamulka Trump ayaa weli si gaar ah u eegaya Iran iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin wada hadal ay la galaan hoggaanka dalkaas. wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan Washington ku diyaariyay halkaasoo Congress-ka lagu siiyay warbixin ku aadan khatarta weyn ee Iran ay gobolka bariga dhexe ku hayso ka hor inta aanay fasax gelin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa. toddobaadyo bowda qaawin iyo hanjabaad military lagu hayay Dahraan iyadoo laga digayo khatar degdeg oo ka soo socota Iran ayaa hadda waxa uu maamulka Trump soo jeedinayaa wada hadal uu la gala dalka Iran. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu yiri waxaanu isku diyaarinaynaa inaanu wada hadal aanay shuruudo ku xirnayn la galno Iran. waxaan diyaar u nahay in aynu la fariisano balse dadaalka Mareykanku ugu jiro inay weeciyaan dhaqdhaqaaqyada wax dhibaataynta ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo ciidamadeeda kacaanka waa ay sii socon doonaan. Pompeo ayaa hadalkan jeediyay isagoo booqanaya dalka Switzerland oo Mareykanka u matala danaha Iran lagana yaabo inuu noqdo dhexdhexaadiyaha labada dal ee kala fog. dhinaca Iran waxay wali sii wadaan in ay hoos u dhigto suuragalnimada wada hadal ay la galaan Mareykanka inta maamulka Trump ay sii wadaan cadaadiska ay ku hayaan dawladda Iran. waraysi lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammad Javad Zarif oo laga sii daayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu ku sheegay in qaabka uu howlaha u qabto madaxweyne Trump ay yihiin kuwa ay dhici karto in ay ka shaqeeyaan dhinaca suuqa guriga iibinta balse aysan ahayn qaab ay ku shaqeyn karaan marka Iran lala macaamilayo. hadda ka horna waan sheegay hanjabaad ka dhanaha Iran weligeed ma shaqeynayso. marna ha u hanjabin Iran, isku day in aad xurmayso, taasi waa ay shaqeyn kartaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay inuu jecel yahay in Trump lagu sii hayo oo aan looga neefin inuu maleeyo waxa Iran ay sameyn karto iyo waxa aysan sameyn karin. wuxuuse hoosta ka xariiqay in Dahraan aysan marnaba aan laga hor istaagi karin in ay dhex mushaaxdo gacanka Bershiya. Mohammad Javad Zarif oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu intaasi raaciyay waxaanu goobtan ugu yeernaa gacanka Bershiya waana sabab marka qiyaas haddii ciidamada militariga Iran ay yimaadaan xeebaha California ama Florida sidee ayaa dareemi lahayd, sidee taasi uga falcelin lahayd. maamulka Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka ee lala galay Iran oo loo soo gaabiyay JCPOA. Pompeo ayaa sheegay in hiigsiga weynaa ee Mareykanka uusan isbedel ku imanin. hawsheena ayaanu wadanaa si aynu u xaqiijino in Iran aysan ku dhammaan meel ay yeelan karto hub nukliyeer ah.
bishii hore Mike Pompeo ayaa gacan ka geystay in warbixin sir ah oo ku saabsan Iiraan la siiyo dhammaan xubnaha Koongareeska oo toddobaadkan Washington ku soo laabanaya kadib fasax toddobaad ah. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga ayaa ku amaanay maamulka Trump sida ay u adkeeyeen feejignaanta xaaladda qatareed ee Iiraan ka soo baxday sida ay u tahay mid dhab ah. halka qaar badan oo ka mid ah dimuqraadiga ay sheegeen in aqalka cad ay qatar u galeen dagaal kale oo military oo masiibo ah oo ka dhaca bariga dhexe. haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo Minnesota ku sugan. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijkeena qubanaha maanta. ciyaaraha NBA-da waddankan Mareykanka haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay waxaa magaalada Toronto lagu soo gabagabeeyay kulankii labaad ee dhexmarayay kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors oo gurigeeda lagu ciyaarayay. labadan kooxood ayaa habeenkii xalay ku madlanaa magaalada Toronto iyadoo lugtii koowaad ay soo badisay kooxda kubadda kolayga ee Toronto Raptors. habeenkii xalay waxay Golden State Warriors doonaysay in guushii hore ee laga qaatay ay guul ku bedelato aanay guul darro kale Toronto kala soo noqonin. taasina way u suura gashay oo waxay kooxda kubadda kolayga Golden State ku badisay 109 halka Toronto ay keensatay 104. sidaasina labada kooxood haatan barbaro ay ku yihiin oo labadii kulan oo ciyaareen meel hal kulan ayay badiyeen. maalinta Arbacada ayaana la isugu soo noqon doonaa guriga Golden State ee gobolka California halkaasi oo lugta saddexaad iyo tan afraadba lagu ciyaari doono. habeenkii xalay waxaa xusid mudan in kooxda Golden State Warriors uu ka dhaawacmay mid kamid ah xidigaha ay ku duusho Klay Thompson isla markaasina la shaki gelinayo kulamada dambe ee soo socda ciyaaryahankan inuu garoonka ku soo noqon doono. waxaase badbaadiyay habeenkii xalay ciyaaryahan DeMarcus Cousins. ciyaaryahankan oo muddo kooxda dhaawac kaga maqnaa ayaa waxa uu mar kale dib ugu soo noqday kulanka Toronto ay la ciyaarayeen markii uu bilowday. waxa uu muujiyay ciyaar wanaag isla markaasina guushii xalay ay gaareen isaga ayaa loo aaneynaya in uu ku lug lahaa. sidoo kale kooxda Golden State Warriors waxa wali dhaawac kaga maqan ciyaaryahan Kevin Durant oo la leeyahay kulanka afraad ama kan shanaad ayaa la filayaa inuu mar kale dib ugu soo noqon doono kooxda Golden State Warriors. kooxda Toronto Raptorsna habeenkii xalay fursad muhiim ah ay iska lumisay oo haddii ay kulanka labaad badin lahayd iyadoo laba guul wadata ay ku noqon lahayd guriga Golden State. waxaana laga dhursugayaa waxa Toronto Raptors ay ka yeesho dhaawaca soo gaaray kooxda Golden State iyo sida ay uga faa'iideysato. haatanna magaalada Liverpool ee waddanka Ingiriiska waxaa shalayto iyo habeenkii xalay ka soconayay dabaaldeg lagu soo dhaweynayay xidigihii Liverpool koobka uga soo qaaday magaalada Madrid isla markaasina ka soo guuleystay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. waxa magaalada Liverpool kooxda ku soo dhaweeyay taageerayaal kor u dhaafaya 700 oo kun oo qof waxaana dhammaan dadkaasi ay u sacabatumayeen guusha ay soo gaartay kooxda Liverpool. waxaana Liverpool ay ku guuleysatay koobkii lixaad ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. macalinka kooxdaasi Klopp haatan waxaa la leeyahay kooxdu waxay doonaysaa in heshiiska uu kula joogo sii dheerayso isla markaasina ay muddo gaaraysa 5 sano oo kale ay macalinka siiso heshiis uu kooxda kula sii joogayo. dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooydan haddii aan soo qaato tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo xulka qaranka ee Holland Louis van Gaal ayaa ugu baaqay ciyaaryahan Matthias de Ligt in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City. ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka mid yahay difaacyada dunida loogu doonista badan yahay. hadalka Louis van Gaal ayaase waxa uu ka xanaajinayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo mar u sacbin jiray markii uu kooxdaasi laylinayay. ciyaaryahankan ayaa waxa kooxaha doondoonaya ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Manchester United iyo Barcelona oo loo badinayo ciyaaryahanku in uu ku dambeyn doono. daawadayaal barnaamijka ciyaaruhu waa naga taatan ee kuladna beh waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo. intaasna waxaa ku eg barnaamijkeenii qubanaha maanta tan iyo kulanti dambe hadduu eebbaha awoodda laheedmo waa Ridwaan Xaaji oo idin la nabadgeliyo.